Asalaamu calaykum dhalinyaro, soo dhawaada. Waa Macalin Maxamuud. Casharkan waxaynu ku arkaynaa tobankan erey meesha noo saaran. Ereyga koowaad waxaa loo aqriyaa howl waa weyl camal ama cry. Weliba oohinta zaidka qofku kor u qayliyo ayaa la yiraahdaa howl. Haddaan jumlad geliyo, the baby began to howl loudly. Canuga kor ayuu u qaylinayay. Ereyga labaad, impetuosity waxaa la yiraahdaa qofka markii uu tallaabo u qaado ama uu ficil sameeyo isagoonan ka fiirsanin. Haste ayay isku macno yihiin. Impetuosity, yes. For example, impetuosity can ruin good plans. Yani ficilka ka fiirsasho aan lahayn qof qorshe kaga ciyaari karta. Ereyga saddexaad, indie waa independent. Yes, qof iskii u taagan, cidna aanan ku tiirsaneyn ee isagoon isku tiirsan. Inta badan waxaa loo isticmaalaa aflaanta iyo heesaha uu qofka ama fanaanka uu kaligiis samaysto isagoonan company weyn iyo brand weyn iyo magac weyn aanan ku tiirsaneyn ayaa la yiraahdaa indie. Marka inta badan waxaad maqli doontaa indie music, indie film iyo waxyaalaha noocaas. Yes. Ereyga afraad, kinship waa qoys, familkaad. Qofka kuugu dhow ee ku xigo ayaa la yiraahdaa next of kin ama kinship. Qof waxaa waayo aad wadaagtaan dhiig. Yes, dadku waa tagoog wadaag iyo tol wadaag ma ahayd. Marka qofkan tagoog wadaag iyo talo wadaag. Qofkan marka tagoog wadaag baatiin, yani isku qoys, isku dhiig, isku abtirsiimaatiin. Yes. Ereyga shanaad, lodge waxaa la yiraahdaa lake. Waa luqadda inta badan Scotland aad u isticmaalaan ama wadamada Scandinavian-ka. Anagu lake ayaynu dhahnaa, iyagu inta badan waxay dhahaan lodge. Yes, lodge. Lake iyo lodge waa isku micno, waxaa laga wadaa lag ama haro. Yes. Ereyga lixaad, misty waa dhado. Tusaale markuu qabow jiro, biyo yar ayaa tusaale haddaad mara banaanka dhigtid, maradaas iyadoo qoyan baad kasoo qaadaysaa. Qoyaankaas ayaa waxaa la yiraahdaa misty. Afka Soomaaligan waxaa la yiraahdaa dhado. Ereyga toddobaad, outing waa markaad wax yar banaanka u baxdaan ama trip yar ama adigu safar yar oo baashaal ah oo magaalada dibaddeeda ama magaalada dhexdeeda marka aadaan ayaa la yiraahdaa outing. Soomaalidan aad bay u isticmaashaa. Shalay outing baan aadnay, beri outing baan aadi rabnay, waxyaalaha noocaas. Adigu waa dalxiis inuu qofku banaanka ugu baxo. Ereyga siddeedaad, ereygaas dadka palm ayay ugu dhawaaqaan, laakiin la'da waa silent. Waa palm. Yes. Palm waa calaacash. Gacanta calaasheeda ayaa la yiraahdaa palm. Ereyga sagaalaad, primeval waa very ancient or early times. Waqtiyadii hore. Prehistoric times. Ancient times, primitive times, waxaa doonta ugu yar. Primeval waa waqtiyada hore ee laga soo tagay. Yes. Ereyga tobanaad ee ugu dambeeyo, quirky waa qurux badan. Yes, wax markay qurux badan yihiin ama haddaan ku dhaho she has a sense of style or she has a quirky sense of style, iyada waxaa waay stylekeeda waa qurux badan yahay ama soo jiidasho ayuu leeyahay. Yes. Ashka intaas ayuu ka egahay. Keep learning and have a good day.